يهود باجرتي ما مقلي دونتا كلا جو ماله ودي دولتي انسي قاتمو برعا inoo ballana burco waxaan arkaynaa maalinta meelaha maraya waa garxatis garxatis baa soo gurmada oo garxatis ku shalay Soomaa meydka laga dul dhaanteenayo waayo imaan garxatis calankii wadan la saaray il cod ila hiltonimo ma ahe waa ognahay hil cod baan ka hadlaya wixii shalay ciidamada militariga daraawiishta SSC qaatimo ay dhirbaaxada ku dhufteen waa gurmadkii ugu horeeyay weeye shalay ma doraad markii dagaalku dhacay gurmadkii habeenka gaashaamo ka yimid ogaadana wallahi la yaaw 49 habar jeclo in dagaalkaasi ku dhinteen oo ay ku geeriyoodeen waliba nimankii maxamed abakar ay u badan yihiin waxa laga xaqiijiyay sidoo kale 22 inay ka dhinteen qolihii loo bixiyay magaciyaha hiil cod hay daawadayaal ama dhageystayaal soo dhawaada meel kasta oo joogtaan wararkii ugu dambeeyay goobihii shalay lagu dagaalamay xaalka ay ku sugan yihiin gurmadka labada dhinac soo xagga SSC qaatumo ya xagga maleeshiyaadka jabhada khawaarijta argagaxsada asal warkaasaan idin wadaagay insha Allah warar badan oo idin ogeyn khasaaraha sidoo kale khasaaraha soo gaaray cadawga waruuxii la shalay dhacay halaag runtii xogta dhimashada nala xaqiijiyay dhinacooda way idin wadaagay insha Allah dhaawaca iyo dhammaan khasaaraha nimankaasi gaaray gurmadka labada dhinac halka uu marayo waxa saacadaha soo fool laga filan karo hadii la kuuriyo jiidaha iyo inay isbedel weyn u kordho fariimo waaweyn bar halka ka diri doona insha Allah qodobka ugu dambeeyaan ku soo gabagabeyn doono waxa weeye waa arinta horgoladii Hargeysa joogo la weeraray guriyahooda lagu daatay shargare muuqaalka marka koowaad shalay horta dagaalkii dhacay waxa loogu magac daray dagaalkii naasa weyne si toosa inagu meena bixin magacaas waxa bixiyay askartii militariga SSC khaatum qalasyadii ayaa magaca bixiyay bal ragna salabal ka war marka ay hadii la ku xabadu dhacdo dagaalkaas naas weyne shalay wuxuu ahaa dagaal culus wixii shalay dhacay ku laaban maayo laakiin waxa rabaa wixii maanta inay ka warramo maanta xaaladdu waa degan tahay uma kala degan in nabad dhacday in xabad joojin dhacday uma kala degin ee wax u kala degtay labada dhinacba in la isu hub urursanayo in la isu diyaar garoobayo in nin waliba doonayo geedka uu gaaro inuu mira ka goosto marka waa la isu diyaar garoobaya labada dhinacba kumad baa marka waxa arkaynaa maalinta meelaha maraya waa garxatis baa soo gurmada oo garxatis ku shalay Soomaa telegramka Abbas Madani waa daawatay Soomaa bal fiiriyo Facebook gu yaala telegramka Abbas Madani ku qor meydka laga dul dhaanteenayo waayo imaan garxatis calankii wadan la saaray il cod ila hiltonimo ma ahe waa ognahay hil cod baan ka hadlaya wixii shalay ciidamada militariga daraawiishta SSC qaatumo ay dhirbaaxada ku dhufteen waa gurmadkii ugu horeeyay weeye shalay ma doraad markii dagaalku dhacay gurmadkii habeenka gaashaamo ka yimid ogaadana wallahi la yaaw gurmadkii gaashaamo ka yimid way gurmadkii ugu horeeyay quruud yimid waa lagu cibaadeysan shalay kuwa laga dil hadii la ku reeyay laga dil dhaanteenaya waayo iyaga weey mid kale waxa weey wareysa xaq ku kala maqnaa intii dagaal reer SSC qaatumo markay qabiilka haayeen oo dhul bahanta haayeen iyo markay maamulka dawladda noqdeen oo SSC qaatumo noqdeen intaaba isaaq way isdilayeen war xagee isaaq ku kala haray meesha isaaq ku kala haray waa kal saareen oogeen waa kuwa dhinteen haye bari baa looga way kuwa dhinteen hadda ma ogtaa waxa weey waxa looga waxa weey ceerigaabo way kuwa dhinteen aynaba iyo oogba waxa weey dagaal ka dhac way kuwa dhinteen buqdarkay bay kuwa dhinteen dagaalkii ugu dambeeyay 23 bay kuwa dhinteen xagee horta isaaq noo kala maqnaa ila waligeeba isaaq ee dhul bahanta gogoosan jiray Soomaa maanta waxa gogoosanay militariga ma xata dhul bahanta dhan ma xata dhul bahanta dhan xata ma waa militariga daraawiishta dawladda SSC qaatumo iyo jabhada khawaarijta argagaxsada asal iyo huwantood way wixii shalay dhacay wax yar ma qeela dhaan waa wareey qeelada ka baxaysa tolaayay waa wareey waana laay maxaa keenay baroortiga orgiga ka weyn maxaa keenay dhirbaaxa ku dhacday khasaaraha ugu weyn ee gaaray jabhada argagaxsada asal waxaan la xaqiijiyay khasaaraha dhimashada warkaasi waa confirm way cid iga dambaysa weydii kartaa ma jirto war meesha leen waxaan leeyahay qeyladan iyo waxa weey waxaan maxay yihiin qeylada baxaysa iyo waa wareedan maxay tahay soo waa niman tayo weeye tab iyo haraag dagaalkii naas weyn ka soo gaaray dhuumadane iska ilow
maanta naas weyn marana dagaalka naas weyn dhimashada waxa la xaqiijiyay 7 nin baa ka dhintay sida loo xaqiijiyay warka aanu ka helay dhexdooda waxa la xaqiijiyay waa warkii saaka ugu dambeeyay weey 49 habar jeclo inay dagaalkaasi ku dhinteen oo ay ku geeriyoodeen waliba nimankii maxamed abakar ay u badan yihiin oo especially waxa lagu waxay aad ugu badan yihiin nimankii reer daahir iyo nimankii waxa uu hadal ku reeyay sulamadu nimankaas aad bay u go'een balay aad bay u go'een waxa la xaqiijiyay sidoo kale 22 inay ka dhinteen qolihii loo bixiyay magaciyaha hiil cod garxajis inay iyaguna ka dhinteen koylaat waliba nimanka aad u go'ay habeenaysta iyo garxajiska waa nimanka gaashaama kiimi weeyay erey caynaash nimankaas aad bay u go'een total dhimashadoodu waa 70 sida la xaqiijiyay dhaawacu isagu inna lillahi wa muushu way isagu tirabel weyd horta khasaarahaas nimanka gaaray culus taasa keentay waxa weey isu gurmadaan in cabaadku meel walba gaaro in waxa weey leeyahay gurmad baayimid sacbiro moogta waxa hadda gurmadku ka socdana waa laba dhinac dhinacan is qaatuman waxa gurmanaya kaliya waa military darawush dawladda is qaatumo xagga ayaa gurmanaya isaaq haan ka maqan ma jirto macalhuwantooda waa wataan oo gurmanayaan marka waxa weey waa ku filayn ciidamada militariga darawushta is qaatumo wiilasha qalasyadu waa ku filan yihiin inay waxa weeye u babac dhigaan inay waxa weeye ay dhirbaxa ku dhuftaan inay daanka jabiyaan maleeshiyada jabhada argagaxsada ay saran ogaadeen baa lahada ogaadeen farintay gaarsiiyay ogaadeen waxa la dirirayo waa isaaq haan ka maqan ma jirto isaaq ay dawlad baa loo sameeyay idinka maanta hal mid baa idinka baahan isaaqa argaysa burcadagan ee waxa weeye hawdka ka soo gurmanaya waa ku filanahay walaalka waxa weeye hadii la kuuray waa iskaga filan waxaan idinka baahanahay waxa weeye gurmadka iga imaanaya dawlad deegaanka ee haan walba la garxajis gurmadkaasi waxa weeye hadii la kuuray waa inuu gurmadkaasi uu istaago weey oo aad ku filataan militariga SSC qaatumo waa ku filan waxa weeye inta burcay hargeysay dhulka degan waa ku filanahay waxaa wujud halka laga caawimay waa shakiyaan ha ka shakiin marnaba ha ka shakiin militariga dawladda SSC qaatumo marnaba ha ka shakiin laakiin gurmadka iga imaanaya kuwa adiga kula degan ee adoomaha ku ah ee adigu hadii la kuurayo madaxa kaga taagatahay hadda waxa weeye yani soo gurman waa ina gurmadku istaajisa waayo waxa meesha ku dhintay garaajiska kuwa ugu badan waa kuwii gaashaabanka yimid waliba reer caynasho weey inta tolkay waxaan leeyahay ogaadeen baan leeyahay insha Allah way gaari doontaa wana wiilal ku ogahay waa wiilashii 18 milyan ah waxa weeye waa niman hadii la kuurayo kabralaha waa niman D5 ah moogta marka intaas weeye waa fariintaas waa gaaraysa wiilasha waxa weeye isturtuuri jiray new bolisku wiilashaas waa fariintaas si toos ah loo gaarsiyo si toos dhulbahanta iyo SSC qaatumo yay ku aaday isaaq haan ka maqan ma jirto garxajisow habar awro habar jeclaay ayuubo waxa weeye hadii la kuurayay arabow waxa weeye guraan gurfow laakiin waa ku filanahay intaas waa intaas horta meel ay garxajis iyo isaaq ku kala maqnaayeen dagaal ma jirto kuwa maxaabiista iyo garxajis baa u badan kuwa dhintana garxajis baa u badan maxay tahay warkan ila waligood qoriga ku dhimanayeen maxay tahay waxa la yiraahdaa hiil cod baa la yiraahdaa ma hiil walaaltinimo ma nimanka horta cod bay raadinayaan codkiina anaga naga dhaxarkeen bahal saabuun ee wata saabuun waqti anaga rabaa isu kala dhaqaan war waxa weeye nacaskii luumay la soo helay muxuu bariba waa lumi waqti bariba waa lumi halkii baad ka sii wadaysaa mid oo idin sheegaya kuwa isaga kala hadlay war garxajisku war yaani basaasin waxa idinku soo kordhin kala waxa weeye war hiilana ma aha dambe leeyihiin hadda waxa weeye iyagii wax kala qaybsamay qarxulay warnimay wajiga inaga xumeynina muuso inaga xumaan kara war harti war dhulbahanta war SSC qaatumaha nagu dirina war xaaladu say noqoto ma ogin ma ogta laakiin waxa noo xisaabsan garxajis dagaalka ku wada jira si toos ah awal ku jira hadda ku jira ma garata marka basaasnimo inay ku soo kordhiyaan mooyaane war kuwa helina ka helimaysan laakiin waxaan leenahay soo socdaa soo soco siraaday militariga SSC qaatumo way ku filan yihiin inay cagta mariyaan maleeshiyada khawaarijta argagaxisada ay saran intaas waa intaas waxaan arkaa gabdho barooranaya oo ooyaya oo gabsaarti iyo diri iyo gorgoradii tuuraya oo tolaa rag belhin belay oo tolaayda ay ka dhamaatay nimanka isaaq ma ogtahay hadaba aragtaan
waxa weeye hadii la kuuro iyagoo la gurmad baanu diray badda cas badda madow gawaaridii hartiga waagi gurmadka bay koobi garay bal u fiirsada kuwii la koobi garay moogta markaas la leeyahay badda cas badda madow waa koobi marka gabdhahan waxaan leeyahay fihimo quuce iyo raxmo yar koobi gareynaya war hablahaasi rag bay lahaayeen waana ogaayeen inay waxa weeye rag iyo rag bay leeyihiin idinkuusa rag ma leedihiin waa maya weeye waxaa taa idii dhaanta intaad ooyi lahaydeen isaaq baan la hadlaya war rag ma lihidin waan ogahay taa waxaa idii dhaanta gorgoradaha iyo diracyada inaad u bixisaan oo aad iyaga u gelisaan idinkuna furada timaadaan idinkase laydi xumeyn maayo gabdhaha tihiin waa laydi soo dhaweynayaa sidii gabdha loola macaamili jiray baa laydila macaamilaya laakiin koobiga laga daayo gabdhaha qalasyada koobiga laga daayo wax cusub la yimaado taas waa taa waxaa la xaqiijinayaa wararka sheegaya in caare booyada xaarka ninkii caare la oran jiray inuu dhaawac yahay waa nin Sacad Yoonis weeye ninkaasi dagaalkii uu ku dhaawacmay shalay halbowlaha kaga taalaabaa la leeyahay laakiin wararka iyaga dhexdooda markay weydiiso way qarinayaan moogta oo aad bay warkaasi u qarinaya laakiin haddana warar kale ka soo baxay dhexdooda oo ah in ninkaasi dhaawac culus yahay Hargeysana lagula tacaalayo shalay rag culusna waa inay meesha kaga geeriyoodeen barnaamijka xalay ayaan ku xusay ninkaasi waa dhaawac baa la leeyahay halbowlaha kaga taalaa hadda ismaan lahayn bacaaro oo booyada xaara ba meel xabad ka dhacayso imaan caaro noola ka fulaysan hooyadii wax weyn dila kula ma dhalin noola ka fulaysan caare markii shalay la lahaa war caara dagaal galay war caara hadaan aqaano ma lahayn maayo laakiin waxa dhici karta isagoo uu waxa weeye dila kula ciidanka biyo u qaybinayo biyo dhaaminayo in xabadu ay helashay laakiin caaro ciidan hogaaminaya uma leeyahay maayo dagaal ka galay aan leenahay dhamaan jamaahiirta ay si qaatumo dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxaan leenahay diyaar garooba difaaca iyo garab istaaga ciidamadeena militariga ee si qaatumo wayna u diyaar garownaa wayna ciidamadeena garab siinaa kuwa magaalooyinka dalka ee si qaatumo jooga wayna ciidanka la garab istaagaa kuwa qurbaha jooga garab istaaga ciidanku wayna muuqdaa dawladda wayna ku garab siinaa oo ku taageeraa difaaca dhulka ee si qaatumo hadda maogta wayn loo diyaar garoobaa halgan adag oo mar kale laba kacleeya oo aynu ku sugayno xuduudaha FC Khaatumo dawladda wayn lagu shaqeeyaa oo lagu taageeraa maamulka Khaatumo waxaan leeyahay language-ka aad ku hadlaysaan iyo language-ka badda khawaarijta ka xasal ay ku hadlayso waa kaafiya kala dheeri qaabka iyo luqadda ay ku hadlayaan ku hadlaydu kura waayo halka waa la idinku dhaliilaya waliba wasiir Najiib Barkhalle saaxiibkay waxaan leeyahay wasiirkii iclaamka ee dawladda FC Khaatumo adiga way language-ka markay ku leeyihiin waxa weeye annaga wax sameynay annaga sidaas sameynay annaga tabinay annaga fulaan adduunku waa media way dawladda idinka la idinmada idinkaana matala waxa weeye afka dawladda idinka ku hadla guulaha military u gaaro guulaha ciidanka is gaaro baanka in la baano in waxa weeye hadii la kuray sida moogta language-ka la bedelo anagu bani beesha caalamka ma nihin beesha caalamku waa u jeedaa wax islaanayeen inay yihiin maamulada jabhadda khawaarijta argixisada saram ee dawladda ay si Khaatumo adduunka cid waxa weeye ay ka qorsan tahay ma jirto intaana maamulka Khaatumo u diray language-ka dalku xaaladda ku jira waa difaacayna dalkeenna deegaankeena xarumaha qorlugud iyo dhulkaasna baafar soo bay noqon doontaa xarumo ka caagan dadka bay ku noqon doontaa waayo looga soo duuli maayo ciidamada SSC Khaatumo maalin walba Malaysia iyo jabhad SRA oo is urursatay kama soo duuli doonaan deegaanadan hore u arabaabay baafar soo bay noqon doonaan meelo ka caagan dadka xarumo ciidan bay noqon doonaan meelo laga difaaco danaha SSC Khaatumo intaas waa intaas abwaankii weynaa ee hadii la kuurayahay abwaan cali dhuux mar uu ku baanayay ee uu reerkiisu ku baanayay waxa uu yiri waa isaga diyaar reerkayga dir colaadeede daandaansiga buuqa way noogu darartaaye way uga darartaa reerkayga daana nabadeed annagoo dooxataaba sidii dawri aardibada meernaa war waa ku filannahay shaki kuma jiro waa ku filannahay iskansiye meesha waxaa ku dagaalamaya waa ciidankii militariga hadda kalmada qaata militariga dawladda is Khaatumo iyo jabhadda khawaarijta argixisada islam oo haan walba leh waa ku filannahay in loo gudboon maalin dhow dagaalku way naga wareegi doonaa insha Allah ta'ala
qola kale la wareegi doonta inta aynu ku sinno intaasna waa intaas waxaan ku soo gabagabeynay waxa la weeraray horgaladii SRM u shaqeyn jiray ee dhul bahante xogaagii ku haray hargeysa caawa lagu weeraray hadda marka barnaamijku duubay ba xogta la soo siiyay askartooda dhaawac baa gaaray waxa weeraray baa la leeyahay hadii la guurayahay xogaa kuwa shalay aabayaashoodu ay lagu laayay dagaalkii Qorlugud waxa weeye meeshaasi waxaa muuqata nimankaas in gacmaha aan lala gafi doonin waxaan leeyahay war shaqo fiican bal haysaan isaaqow kuwa noo soo dhangaday midda kale damiir xumadina kuwa maxaa u leen weydeen halka markaad ku dhimanaysaan kuwa idin leenayna kuwa la haybiin kuwa maxaa u xaji qaadan kuwa horgalada maxaad ugu xaji qaadan weydeen soo ulay soo aan waliba soo ulay taasna waa taa dadka Hargeysa ku nool ee Daaro Ismaaciil ama Harti ama D5 ama reer SC qaatan guud ahaan ee ku nool Hargeysa waxaan leeyahay iyo Burcoba ha ka baxaan magaalooyinka idin dhow taga aan carra isaaq ahayn xaaladdu way isbedeli doontaa gobolku xaalad degdeg u gali doona meel walba waa la isku hubruusanaya dabcan marka yaani qabtu yaani kugu dhicin insha Allah taala si shargalay muuqaalkan meel dheer gaarsiin